بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada qaybtii saddexaad cashirkii macaanka ee aan wadnay maalmahan qaybtan insha Allah waxaa kaga hadli doonaa daaweynta macaanka iyo su'aalo badan oo la xiriira oo ka dhasha daawooyinka loo qaato xanuunka macaanka haddii aan ku bilaabo qaybta su'aalaha oo aad muhiim u ah kana jawaabayo waxyaabo badan oo la xiriira daaweynta macaanka su'aasha ugu horeysa waxaa waaye waxaan badanaa la kulmaa qolooyin daawada sokorta badanaa u qaata sida xanuun baabiyaha taasoo ugala jeedo daawo sokor oo la qaadanayo kaliya markay kacsan tahay weliba ay dhici karta xataa qofka inuusan iska cabirin uu yiraahdo astaameed markaan dareemo ayaan laqaa laakiin daawada joogto ma qaato taas waa muhiim inaan ku bilaabo ahmiyadda ay leedahay awgeed daawada sokorta waxaa loogu talagalay in qofka joogto u qaato haddaadan joogto u qaadan oo sida haddaan sheego kale u isticmaashid waxaa ka dhalanayo kow in sokortii adoon ogeyn inay dhib ku gaarsiiso oo ay waxyeello kaa gaarsiiso xubnaha ugu muhiimsan jirka sida kelyaha indhaha maskaxda wadnaha cilladda labaad ee keeni karta waxaa waaye in daawadii jirkaaga ula qabsado maadaama sida saxda ah u qaadanayn oo hadhowta ay dhici karto daawadaas daawo ka xoog badan in lagu wareejiyo su-aasha labaad waxaa waaye iyadana haddii aan daawada joogto u qaato waxaan ka cabsanayaa inay sokorta iga dhacdo amaba sokorta way iga dhacaysaa haddii horta markaa daawada joogto u qaadato aragti sokorta inay kaa dhacayso daawada lagu qoray ayaa laga yaabaa inay tahay daawo culus oo aad u baahan tahay daawo cabirkaaga la eg oo haddii joogto u qaadato sokorta aysan kaa ridin haddii laakiin aysan kaa dhacaynin oo ay cabsi un kaa tahay waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo in daawada sokorta sideedaba ay leedahay muddo kooban ay jirka ku jirayso haddii subaxii aad qaadatid waxaa laga yaabaa haddii oo maqribkii la gaaro ama habeenkii in sokorta already daawada jirka ka baxday oo aad u baahanta inaad daawo kala qaadatid taas macnaheedu ma ahan sida dad badan ay aaminsan yihiin haddii daawada subaxii aad qaadatid oo haddana habeenkii aad ku xijisid inay hoos usii wadayso oo birna hoos usii wadayso taasoo keenaysa inay sokorta kaa dhacdo taas waa fikrad qaldan su-aasha saddexaad waxaa waaye mararka qaar cirbadaha iyo kaniiniyada in laisla qaato ay dhakhaatiirtu ku taliyaan sababta keenta maxaa waaye aniga inaan isla qaato ma u baahanahay mase kaniini keliya ay qoraysaa mase cirbad keliya ayaan qaadanaya taas waxay ku xiran tahay horta sokortaada nooceeda sidii aan shalay kasoo hadlaba sokortaada hadday tahay nooca type 1 waa qasab inaad qaadatid insulin haddii sokortaada ay tahay type 2 oo lagu xakameyn karo kaniini iyadan waa in kaniini lagu xakameeyo haddii kaniinigu xakameyn waayo waa laga yaabaa in insulin lagugu bedelo ama insulin iyo kaniini inaad isla qaadatid iyadoo laga hortagayo in insulin aad u sarreeyo in lagu siiyo taasoo dhici karta dadka insulinka oo muddada dheer qaadanayay weliba cabir badan ka qaadanaya inuu miisaanka ku kordhiyo saa darteed ayay dhakhaatiirtu waxay ugu taliyaan mararka qaar dadka qaba type 2 in insulin iyo kaniin la iskugu daro si sokorta loo xakameeyo su-aasha afraad waxaa waaye cirbadaan qaataa oo insulin ah cirbadihii waan ka daalay si aan isku durdurayay waxaan rabaa inaan kaniin u bedelo ma dhici karta in kaniin lii bedelo haa way dhici karta in kaniin lagu bedelo haddii sokortaada ay tahay nooca labaad oo type 2 ah waa lagu bedeli karaa laakiin waxaa u baahan tahay markii lagu bedelo inaad dhakhtarka la socotid oo la kontroolo lana hubiyo in kaniiniga uu sokortaada uu kontrooli karo taas waa muhiim su-aasha shanaad waxaa waaye cudurkan oo sokorowga ama laga yaabaa inuu jirka ka baxo mase ku qasbanahay inaan weligii intaan noolahay daawo aan qaato horta sideedaba xanuunka macaanka san hore usoo sheegaba waa xanuunada raaga sida dhiigkarka oo kale daawadiisana joogta loo qaataa way dhici kartaa mararka qaar in sokortaadu waxyaabaha keena ay tahay waxyaabo oo xadidan oo aad kaga reesatid maalan waxaa jira dad oo sokorta u keento daawooyin ay qaateen oo qaldan sida daawooyinka loo yaqaan steroidska oo loo isticmaalo allergiga oo kale iyo lafa xanuunka markaasoo kale way dhici kartaa haddii daawadii dhibka keenaysa jirkaada ay ka baxdo in sokortaada caadi kusoo laabato waxaa dhici karta mararka qaar in ganaca uu kaa gaaray infection xadidan oo ay dhici karta inaad ka bogsatid kadib ganac uu bilaabo inuu dib u shaqeeyo oo insulin soo daayo markii laga reebo xaaladahaas oo dhif ah badanaa dadka qaba sokorta daawada joogta u qaataan su-aasha lixaad waxaa waaye oo badanaa dadka ay weydiiyaan haddii daawada sida aad ku talinaysid aan sameeyo oo joogto aan u qaato ma laga yaabaa daawadaas inay waxyeello ii gaarsiiso kelyaha ama dhibaato kale ii keento ama inaan la qabsado taas iyadana fikrad qaldan waaye badanaa daawada sokorta cabir toosan oo sax ayaa lagu qaataa haddii daawada joogto u qaadatid iyadaa ka hortagaysa in jirkaagu daawada la qabsado waxay kaloo ka hortagaysaa in sokorta ay wax kaa gaarsiiso kelyaha su-aasha kale oo ku xigta waxaa waaye haddii ka waran aan sameeyo dadaal oo xagga cuntada ah oo aan jimicsi sameeyo oo daawada aan u kaadiyo
oo kadib haddii aan arkay inay ii shaqey weyso daawada aan bilaabo. taas fikrad xun ma ahan, laakiin waxaa muhiim ah horta inaad ogaatid sokortaada heerka ay marayso markaas. sida shalay aan soo sheegaba way jiraan dad saas loola tacaalo oo talooyinkaas la siiyo oo aan daawo lagu bilaabin. qolooyinkaas oo loo yaqaano pre-diabetics oo ah dadka sokorta aysan si fiican uga soo wada muuqan laakiin ay qarka u saaran ama ay ku soo socoto. laakiin haddii sokortaada ay tahay sokor already dhib ku gaarsiisay ama ku saameysay ama astaamaheedii aad leedahay, in aad cunto aad ku controlshid ama jimicsi aad sameysid inay kaa yeesho ma dhacayso. marka waxaa muhiim ah inaad dhakhtarkaaga la tashatid, isagaa marka kuu sheegi karo inuu jaanis ku siin karo iyo inuusan ku siin karin. su-aasha kale ku xigta iyadana waa mid kaloo muhiim ah. waxaa laga yaabaa inuu qofku dhaho maxaa doctor iigu bilaabaysaa daawo 500 oo milligram ah, hebel oo aan saaxiibo nahay ama aan qaraabo nahay ama familka ka tirsan wuxuu qaataa daawo oo 1 milligram ama 2 milligram oo isagana sokortiisu ay controlan tahay. taas waa su-aal fiican. badanaa markii laga hadlayo waxtarka ama awoodda daawada badanaa laguma qiimeeyo dooska, waxaa lagu qiimeeyaa waxtarkeeda oo waxa ay ka samaysan tahay. waxaa laga yaabaa daawo 1 milligram inay ka xoog badan tahay daawo 1,000 milligram ah. marka waxay ku xiran tahay daawada lagu siinayo heerka aad maraysid. matalan oo kale waxaa jiro qofka markii xanuunku cusub yahay oo kale daawooyin lagu bilaabaa jiro oo loo yaqaano first line drugs. kuwaas haddii u shaqey waayana waxaa loo gudbaa second line, haddii u shaqey waayana third line. waxaa laga yaabaa daawada aad u cararaysid oo 1 milligram ama 2 milligram ah inay tahay daawo aad u culus oo daawooyinkan dhan ka sarreysa oo haddii kuwan shaqey waayaan in la bilaabo ay tahay. marka taas muhiim waa inaad ogaatid cabirka mar walba ha fiirinin. daawo kastana waa saas, midda sokorta kaliya maahan, xataa dhiig karka xataa waa sidaas oo kale. su-aasha kale ku xigta waxaa waaye ma laga yaabaa daawada inaan meesha aan ka qaadan lahaa 2 jeer 1 jeer aan qaato? taas maya waaye jawaabteeda. sababtoo ah daawooyinka markii lagu qorayo 2 jeer ama 3 jeer ma aha wax uu dhakhtarka iska maagay. waxay ku xiran tahay daawada nooceeda. waxaa laga yaabaa daawo jirka ku shaqeynaysa 12 saacadood oo kadib ka baxaysa, kuwaas oo 2 jeer la qaato. waxaa jirta daawo 8 saac shaqeynayso 3 jeer la qaadanayo. daawo waxaa laga yaabaa oo 6 saac shaqeynayso 4 jeer in la qaato ay tahay. marka daawada lagu qorayo nooceeda ay ku xiran tahay. su-aasha ugu dambeysa waxaa waaye inuu qofku yiraahdo doctor sokortan familka ayaa qaba, aabbo kale dhibkaas u gaarsiisay, keliyaha laga dhaqaa, hebel oo kale dhibaatooyin kale u keentay, anna maadaama aan xanuunkii dhaxal ahaan igu soo gaaray sidee aan uga taxadari karaa in sokortan aysan inaafeynin ama dhib ii keenin? taas badanaa waxaa looga taxadari karaa oo talooyin ahaan aan u siiyaa bukaanka 5 shay inuu qofka sameeyo. midda koowaad waxaa waaye horta daawada inuu joogto u qaato. midda labaad waxaa waaye inuu cabirkeeda la socdo ka war hayo. waa muhiim in saacadda wax lagu cabiro ay guriga ku taallaa maadaama uu xanuun lala noolaanayo. midda saddexaad waxaa waaye inuu qofka dhaqdhaqaaq sameeyo. haddii aad tahay qof oo matalan fadhigiisu badan yahay ama xafiis ka shaqeeya oo mar walba gaari ku socdo, jimicsi bilow, dhaqdhaqaaq sameey, dhidid ha kaa yimaado. midda afraad waxaa waaye aqoon u yeel xanuunkaaga. inaad aqoon u yeelid xanuunkaaga waxay ka qayb qaadanaysaa in xanuunka aad la saaxiibtid, wixii u daran aad ka ilaalisid, wixii u roon aad ku dadaashid. midda ugu dambeysa oo shanaad waxaa waaye aqoon u yeelo cuntooyinka, waxyaabaha u daran inaad ka ilaalisid oo cunto ahaan ah iyo wixii u roon inaad ku dadaashid. taasoo insha Allah cashirka soo socda aan si fiican ugu falanqeyn doono maadaama uu yahay cashir dheer oo muhiim u ah dad badan ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah. su-aasha ugu dambeysa oo aan kusoo gabagabeynayo waxaa waaye ma laga yaabaa dad xanuunkan halis ugu jira ama inuu ku dhacay u sahlan tahay? haa. sokorta nooca type 2 ama nooca labaad badanaa dad halis u ah ayaa jira oo u sahlan tahay inuu ku dhaco oo dadka kale uga nugul. waxaa ka mid ah dadka aad u caylan, dadka aanan jimicsan, dadka sigaarka caba, hooyooyinka sokortooda ay kacdo xilliga uurka, dadka qaato daawooyinka qaarkood oo sokorta lala xiriiriyo, dadka oo jirkoodu uusan xakameyn karin sokorta oo aan shalay kasoo hadalnay oo qaba cillad loo yaqaano glucose intolerance, dadkaas ma u nugul yihiin. marka haddii dadkaas aad ku jirtid waa inaad sameysaa dadaal ka badan dadaalka dadka kale caadiga ay sameeyaan. marka intaas kusoo gabagabeynaa cashirkeena maanta, waana mahadsantihiin.